dhaga kale maanta waxaa la soo bandhigay goosgooska filimka The Butney oo Sanjeedid oo hogaamiye uu ka yahay saaxiibayaal ayaa maanta la soo bandhigay filimkan inaba caadi maaha taleelarkiisa taleelar waxaa laga soo bandhigay ama goosgoos laga soo bandhigay oo macquulnimadiisa xataa in la aamino ay adag tahay saaxiibayaal filimkan Moni Roy ayaa kula jirto sidoo kale Sanjeedid waxaa kula jiro Balaka Tiwari Asif Khan iyo youtuberka caanka ah ee lagu magacaabo Bionic ayaa filimka kula jira saaxiibayaal filimkan waa filim ruuxaan iyo reer aqraad iyo ghost iyo waxyaabo noocaas ah ayuu filimkan uu ku socdaa saaxiibayaal goosgooska laga soo bandhigana inaba caadi maaha waa goosgoos hab shactara leh iyo madadaalo leh loo dhigay saaxiibayaal gabadha lagu magacaabo Moni Roy ayaa waxay ku mataleen saaxiibayaal ghost ama reer aqraad oo macnaha guur iyo nin ay jecesha reer aqraad nin jecel waayay calaa taxal macnaha waxa waay gabar reer aqraad ah oo ku waalatay inay nin ay hesho ay ku waalatay sidaa darteed marka filimkan waa filim noocaas iyo waxyaabahaas qaabilsan arrimaha jaceylka iyo ruuxaan iyo waxyaabo noocaas ayuu filimkan ku socdaa sidaa darteed marka waxaa la leeyahay iyadoo Moni Roy rakaate ay ku haysato wiilasha yaryarka Balaka Tiwari iyo Sanis ninka lagu magacaabo Sanisin ayagoo yaka ku haysato gabadha lagu magacaabo Moni Roy ayaa waxa imaanaya saaxiibayaal nin ghostigaba ka awood badan ee lagu magacaabo Sanju Baba ayaa imaanaya saaxiibayaal halkaas ayuu wacdarihiis oo ka dhigaa marka muuqaalka goosgooska laga soo bandhigay inaba caadi ma ahayn saaxiibayaal feeri stringa ayuu ahaa waana madadaaladiisana aad ayay u sareysay saaxiibayaal sidaa darteed filimkan waxaa la daawanaa 18 Abriil 2025 ayaa la daawanaa bishan 2 maalin kadib dhala doonto 18keeda ayaa filimkan tiyaatarada la saari doonaa wuxuuna kalaash la geli doonaa filimka lagu magacaabo Kaysari Chapter 2 oo Akshay Kumar iyo Arman Dhafaan iyo Aniya Bandi hogaamiyayaal ee Kenya saaxiibayaal marka Sanjeedid waa oo soo laabtay muddo kadib filimkiisa ugu horeeyay oo tiyaatarada loo saari doono oo hogaamiye oo ka noqon doono ayuu filimkan ku matali doonaa saaxiibayaal dhaga kale